السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان waxaan rabaa inaan wax yaro update aan uga hadlo oo soo kordhay sababtoo Cisco ayaa waxay soo saaraysaa waxay tahay certifications cusub iyo update badan oo wax alla wixii Cisco certificate ay sameeyso dhan update ayaa lagu sameynayaa. Update-ka lagu sameeynaya marka maahan sidii hore oo loogu sameyn jiray update-ko saddexdii sanaba hal mar lagu sameyn jiray, balse waxa hadda laga dhigaba waxay tahay sanad kasta in certification kasta oo Cisco ay leedahay update inuu ku dhaco. Marka aniga adigu waxaan isla eegaynaaba waxay tahay Cisco sida ay u soo bandhigayaan updateskaas iyo waqtiga ay soo bixinayaan. Weligeedna hore uma dhicin ogaaw Cisco inay sheegto waqtiga ay examka ama imtixaanka ay update ku sameynayaan ama markay soo saarayaan. Markii ay update ku sameynayaan iyo marka ay soo saarayaan hal mar isla ahaan jirta, laakiin weli hore uma dhicin inay ku siiyaan 6 bilood oo kale, inay ku siiyaan hal sano oo kale oo sii ogaatid sanadka soo socda waqtiga oo imtixaankan oo soo bixi doona. sababtoo waad isku diyaari kartaa intaan waqtigaas la gaarin kadib waad gali kartaa. marka waxa arki kartaa waxay tahay roadmap kan ay sameeyeen Cisco. roadmap ka ay sameeyeen Cisco marka hadaad eegto meeshan waxa arkaysaa waxay tahay in hadeertan ay ka soo bilaabatay August ilaa iyo October. ogaawna update kan hadeertan ay roadmap kan ay soo bandhigeen, waxay soo bandhigeen waxay tahay adiga around October camal sanadkii la soo dhaafay September October meelahaas aan u maleynaa inay soo bandhigeen. waan arkay aniga update ka sameeyeen, laakiin waxaan rabay inaan si hubsado sababtoo waxyaalo yar oo nuxnux yar oo waxaa jirtay certifications cusub la soo saaraya. marka waa aan sugayay inta maaragtay ay ka xaqiiqoobayso hadalkaas xogaa xantaas yar xan hoose waay. marka waxay soo saareen waxay tahay oo ay ku sameynayeen markaas waa data centerka ay waxay ku sameynayeen review ay ku sameynayeen. marka waxa jirta waxay tahay saddex nooc ay ku sameyn doonaan. marna sababtoo colorskan hadaa fiiriso, colorkan mid waa orange, midna waa blue, midna waa hadaa fiiriso green. marka markii ay tahay orange waa review, markay tahay blue waa announcement oo waxa weeyaan announcement waa lagu soo dhawaaqay weeyaan oo imtixaankaas cusub waa marka update-kaas lagu sameeyay oo exam blueprint-igi baa la soo saaray laga wadaa. midda ugu dambayso green-ka ahna waa publish, waa diyaar, waa geli kartaa imtixaankaas ayaa laga wadaa. marka orange-ga waxa weeyaan waa dib baa loo fiirinaya oo review ayaa lagu sameynaya. blue-ga waxa laga wadaa waxay tahay waa exam blueprint-iga ayaa la soo saaray. green-kana waxa laga wadaa waxay tahay koorsadii green waxa laga wadaa waxay tahay ama certificationskii green waa diyaar ayaa laga wadaa. marka haddaan isla eegno marka timeline-ka hadeertan waxa arkay waxay tahay in certificate-kan oo data center iyo collaboration in lagu sameeyay review okay August ilaa iyo October 2022. haddaad fiiriso marka November 2022 ilaa iyo January 2023 waxa weeyaan waa already waxa lagu sameeyay waxa lagu sameeyay exam blueprint-iga announcement ayaa lagu sameeyay waqtigaas. dan kadib haddaad fiiriso isla data center iyo collaboration-ki waa la soo saaray. okay haddaad fiiriso marka hadeertan January November 2022 ilaa January 2023 waxa lagu sameeyay mataqaana review waa security-ga CCNP security iyo CCNP enterprise review lagu sameeyay. dan kadib haddaad fiiriso marka February ilaa iyo April 2023 waxa lagu sameeyay waxay tahay security-ga waa publish. marka February ilaa iyo April hadeertan February baan ku jirnaa ilaa iyo April inta u dhaxaysa adiga waxaan u maleynayaa March oo kale in la soo saari doono exam blueprint-iga cusub ee CCNP security iyo CCNP enterprise. markii la soo saaro ayaa waxa la sameyn doonaa May ilaa iyo July ayaa waxa la sameyn doonaa in la soo saaro security-ga iyo enterprise-ka in la soo saaro. laakiin haddaa fiiriso meeshan maxaa review lagu sameeyay CCNA review lagu sameeyay February April February ilaa iyo April ayaa lagu sameeyay CCNA review. CCNA waxa la soo saari doonaa aan u maleynayaa aniga sida ay Cisco sameey jireen June. sababtoo June waxay qabtaan Cisco Live ay Mareykan ku qabtaan oo shir weyn oo shir guud oo weyn oo Cisco ay qabtaan badanaa certificateska marka meeshaas ay ku soo bandhigaan. so CCNA enterprise iyo CCNA cyber CCNA service provider labadoodaas ba announcement waxa lagu sameynayaa inta u dhaxaysa May ilaa iyo July. okay haddaa fiiriso marka August ilaa iyo October waxa la sameynayaa waxay tahay CCNA iyo CCNA enterprise iyo CCNA service provider in la soo saaray publish noqdaan. so haddaad CCNA baranaysay ogaaw
waxaa haysataa ilaa iyo August haddaa hadirtaan February aan sanad ku jirno ilaa iyo August haysataa okay haddaa fiiriso markaa waxaa markaas review lagu bilaabo waxay tahay markii halkan la joogo waa Definite-ka CCNA Definite iyo CCNA Cyber App ayaa lagu bilaabay halkan markii la joogo and May ilaa iyo July inta u dhaxaysa 2023 waxaa arkaysaa waxay tahay marka in review lagu sameynayo August ilaa iyo October in review lagu sameynayo CCNA Definite iyo CCNA Cyber Security haddaad fiiriso marka meeshan 2020 and November 2023 iyo ilaa iyo January 2024 waxaa la sameynayaa waxay tahay haddaa fiiriso meeshan waa CCNA Cyber Security iyo CCNA Definite ayaa la soo saaraya balse haddaad fiiriso meeshii lagu sameynayay review kan oo hadirtan 2022gii review lagu sameynayay hadirtan asana reviewga oo ku soo laabtay ogaaw 2023 August ilaa iyo October marka sanad kasta isku waqti ayay soo baxayaan laga wadaa sababtoo haddaad fiiriso waa August ilaa iyo markan October inta u dhaxaysa 2023 data centerka iyo collaborationka waxa lagu sameynayay review waa August ilaa iyo October ayaa lagu sameynayay 2022 marka hal sana ayaa ka soo wareegatay marka sanad kasta waxa lagu sameynaya review announcement publish review announcement publish ogaaw sababtoo ah waxa loo baahan yahay waxay tahay technology-da maadaama isbedbedelkeedu ay badan yahay in isbedbedelkaas lala jaan qaado anigu waxaan ku raacsanaa 100% Cisco saanay sameynaya sababtoo ah waad ogtahay haddii CCNA aad maanta iska diiwaan geliso kale ka soo qaad oo aad ka qaadanayso hurbad oo kale waxaa haysataa hal sano inaad CCNA-daas aad imtixaankeeda gasho okay ma ahan CCNA-daas inaad inta meel iska dhigato aad dhahdo okay waxaan sameynayaa waxay tahay mar kale aan u soo jeesan doonaa oo hadeertan Chinese aan ku helo lacagta raqiisneed oo ma soconayso waa dhace koorsadaas koorso cusub soo baxe oo anaga shaqadeena badatay waan ogahay laakiin at the same time ardada ayay mataqaanaa maartay aad iyo aad ay ugu jirtaa faa'iido badan sababtoo mar kasta waxaad helayba waxay tahay oo sanad kasta waxa ku diyaar ahaa informationkii ugu dambeeyay marka haddaa fiiriso haddana quarter 3 markii lagu soo laabto waxa review lagu sameynaya waxay tahay CCNA oo CCNA di review halkan lagu sameynaya February ilaa April 2024 ayadana waa ku soo laabatay CCNB Cyber Security CCNB Security CCNB Enterprise waa under waxa weeyaan exam publishing exam blueprintiga ayaa la soo publish gareeyay haddaa fiiriso May ilaa iyo July already CCNB Security CCNB Enterprise waa ay soo baxday marka saas bay iskaga dawameeraysan doontaa ma jirto wax la yiraahdo 3 sano ayaa haysataa inaad CCNA mataqaana imtixaan cusub oo soo baxo iyo waxaas ma jiraan waa lagu sheegaya waxa lagu leeyahay waxaan baa lagu soo kordhiyay imtixaanka cusub saan u socon marka waxaan rabaa waxay tahay hal mar anay adigu inaan isla booqano Cisco website inaan isla booqano rabaa anay adigu hal mar oo aan tagno horta Google ka baa tagaysaa dan kadib waxa ku qoray certification roadmap marka ku qorto waxa tagaysaa certification waxa idin soo sheegayo dhan waa kuwana oo halkaan anigu ka soo qaaday anigu iskamaana sameeysan waxaan Cisco website kooda ka soo qaaday oo hadaad eegto waxa arkayba waxay tahay waa review announce publish midda hadda idin soo sharaxayna waa tana hadda fiiri waxaan ku jirnaaba waxay tahay February Soomahan imtixaankan data centerka iyo collaborationku waa live waa hadeertaana gali kartaa imtixaanka cusub darabto sababtoo hoos hada u socoto waxa arkayba waxay tahay waa waxa arkayba waxay tahay CCNB iyo CCIE core oo collaborationka ah inuu mataqaanaa maarat first day to test waa 20 April laakiin exam topics-kii already waa la print gareeyay maalinka imtixaanka la bilaabayo waa lagu sheegay oo versionka cusub oo vershinada marka waxay noqon doonaan baa waxay tahay vershinadu sidaan u sameyn doonaan hadaa isla page-kan hoos hada u socoto waxa arki doontaa baa waxay tahay version 2.1 version 2.2 ama 1.1 1.2 1.3 waa minor update weeyaan waa wax 20% ka yar ayaa update lagu sameeyay okay laakiin hadaad aragto version 3 oo kale ama version 2 oo kale waxa laga wadaa baa waxay tahay completely and almost 50% ama completely ayaa la bedelay imtixaanka ayaa laga wadaa marka Cisco waxay sameyn doonaan baa waxay tahay hadaad meeshan eegto waxay ku leeyihiin imtixaankan 350-801 oo mataqaanaa collaboration core-ka u ahaa version 1 ayuu markii hore ahaa Soomaa version 1.1 waxa laga wadaa baa waxay tahay imtixaanka waxa laga bedelay wax 20% ka yar 20% wax ka yar ayaa laga bedelay ayaa laga wadaa hadii meeshan ay ku soo qormato marka version 2 oo kale waxa laga wadaa waxa bedelmay imtixaanka originalkii markii la fiiriyo waxa isbedelay wax 50% ka badan ama asagii dhan isbedelo new material weeyaan okay waxa arkayba waxay tahay marka waa collaboration kanu
tanna waa data center labadoodaas marka hadda diyaara maadaama ay ku sameeyaan review review ay ku sameeyaan August iyo October inta u dhaxaysa 2022 ayna dhaheen announcement waxaan ku sameynaynaa ayna announcement ku sameeyeen waxa la wixii mataqaanaa exam blueprint changes oo dhan hadaa fiiriso waxay soo saarayaan baa waxay tahay ayadoo dhammaystiran oo imtixaankeedu diyaar yahay April ayay soo saarayaan marka waa lagu sheegaba 1 April ayay soo baxaysa sorry 20 April ayay soo baxaysa 2023 ayaa lagu yiri marka hadaa fiiriso oo haddaan ka cibro qaadano marka tan haddaan ka qiyaas qaadano cibro qaadano ma qiyaas qaadano ayaan ka wadaa okay waxaan arki karnaaba waxay tahay CCNA okay CCNB security iyo CCNB enterprise waxay soo baxayaan July dhexdeeda ay soo baxayaan ma soo baxayaan May mana soo bixi doonaan June sidoo kale haddaan fiirino August iyo October inta u dhaxaysa 2023 CCNA waxay soo bixi doontaa haddaan ka qiyaas qaadano sida ay sameeyeen collaborationka iyo data centerka waxa weeyaan waa October ayay soo baxayaan marka adigu laakiin waxaad ku tashataaba waxay tahay CCNA mataqaanaa inay qadka ka baxayso midaan hadda jirtaa 2023 August 2023 inay qadka ka baxayso adiga ka hor samee okay CCNB na sidoo kale laakiin CCNB hadda bilowdo ogow waxa loojiga ma aqliga wax galaya ma aha inaad waqtigaas aad ku dhamayso ogow oo impossible weeyaan hadii aad adigu aad naftaada been u sheegayso khiyaameysido mataqaana asdamarinayso wax waa gooni laakiin laba imtixaan oo CCNB inaad gasho it's almost impossible hadii laakiin aad diyaar u tahay oo aad gali karti oo aad hadda rabto inaad diyaar aad gasho bishaanba ka soo qaado kale CCNB enterprise labadeeda imtixaan oo kale waxaad haysataa adiga ilaa iyo waxa haysataa aan dhihi karaa ilaa iyo May ayaa haysataa oo 3 bilood oo kaliya haysataa 3daas bilood haddaad ku gasho marka imtixaanka ma ahan haddaad hadda baranaysid inaad bara kartid 3 bilood CCNB ogow mana ahan adiga inaan ku dhahay waxa ma bara kartid waxa ma sameey kartid may waa reality waxay tahay CCNB 3 bilood looguma talagelin in lagu barto haddaad dhahdo video aan daawaday waan fahmay waan mataqaanaa waan galayaana beena isku sheegto videoga haddaad hal mar daawato macquul ma videoga waxa u baahan tahay inaad casharada fahanto waxa u baahan tahay inaad note qaadato waxa u baahan tahay inaad labis ka samayso waxa u baahan tahay inaad buugga CCNB da akhriso waxa u baahan tahay inaad imtixaanka mataqaanaa sample exams inaad aragto oo Cisco waa practice exams gada haddaad rabto Cisco ayaga sameeyaan Soomaa ayaga practice exam gada practice exams online ka waa ka buuxaan maahan dambis ya maahan brand dump kama hadlay waxaan ka hadlayaa waxay tahay official practice exam practice exam waa inaad marka iska qaadaa oo aad ogaataa inaad imtixaanka su'aal kasta inaad ka jawaabi kartid kadib ayaa diyaar u tahay kadibna waxa dhici karta xataa inaad ku dhacdo 150 waxa dhici karta inaad ku dhacdo sababtoo ah waxa weeyaan waa imtixaan ma ahan cilmi imtixaan kelmadda fiiri waxa lagu imtixaanaya cilmigaaga la tijaabinaya ma aha waxa lagu imtixaanaya weeyaan marka taasna ogow okay marka taas waxa weeyaan marka waa certification update-ka soo socda weeyaan balse waxa jiraba waxay tahay new certifications oo Cisco ay soo saartay aniga waan ogaa nuxnuxda waan ogaa ilaa iyo inta u dhaxaysa October August October waan ogaa sababtoo meel waxa jirta ay dadka oo authorska dadka buwaagta ka qora CCNA-da iyo CCNB-da iyo Cisco certifications oo dhanba ay ku sheekaysaan oo dhahan waxaana dhici kara waxaana laga yaabaa sababtoo waxa hore u jiri jiray hadaa xasuusato CCNA-du inay laba ahaan jirtay oo CCNT iyo ama ICND1 iyo ICND2 marka CCNT mid la jirto foundational certificate Cisco 2020 qad ka saareen taas waxay dhaheen saacada laga bilaabo ma jirto CCNT wax la yiraahdo okay anaguna qadka waan ka saaran ogow bal kadib CCNA waxa soo baxda cusub hadda marka Cisco gadaal uga laabteen gadaal markay waxay u laabteen waxay dhaheen waxaan soo saareynaa laba koorso oo entry level ah oo loogu talagalay qofka raba inuu barto oona ah labadaas koorso networking iyo cyber security kala marka hadda hadirtan aan isla tagno meesha Cisco certifications baada ku qorto Google-ka waxa ku soo baxayba waxay tahay bogan hadda kili ku siiso waxa tagaysaaba waxay tahay waa Cisco certification page ayaa tagaysaa marka hoos hadda u socoto hadda waxaan sameynayaa actually hoos u soconaya waxa kama bedelayo gadaal ugama laabanaysa sababtoo ah si clear ah loogu jeedaa hadda fiir Cisco certifications waxa taqaanaba waxay Soomaaliya CCNA inay ka bilaabato sheekadu hadda waxay ka bilaabataa waxay tahay entry level la soo saaray ya entry level kaas marka wuxuu ka bilaabanayaa ayaa waxay kala yihiin ba waxay tahay waa horta waa certification cusub oo magaceedu leeyahay Cisco certified support technician okay
oo ama CCST in cyber security ama in networking marka labadoodaas loo kala saaray imtixaamadan marka waa ka duwan yihiin Cisco imtixaanadii aan naqaanay maadaama imtixaankan hadirtan CCNA lagu leeyahay sanad kasta ayaa mid cusub soo baxaya lagaaga baahan in update ku samayso kuwan waa hal mar aad galay imtixaanka mar dambana kaama dhacayaan laakiin ogaaw waa foundation waa entry level waa weeyaan cyber security hadaada weliga aada maqalin oo horey aad mataqaana u taqaanay network hadaa hore u taqaanay basic mataqaana networking iyo hadaa hore u taqaanay waa aad mataqaana markana baran kartaa haddii aadan weliga hore networking aadan u maqlin oo xataa network plus aadan soo dhiganin oo A+ aad soo dhigatay A+ xataa networking waa lagu bartaa laakiin ka soo qaad inaad network plus xataa soo dhiganin ayada waa ka bilaabi kartaa waxa loogu talagalay waxa taa foundational certificate inay noqoto laakiin network plus waxa ku jira ma ahan in halkan ku baranayso ogow network plus waa vendor neutral certification oo aad ku baranaysid cilmi ka baxsan hal company kuma koobna companiya badan weeyaan ayaa mataqaana companiyada jiro dhan ayaa ku baranaysaa qalabkooda iyo soo u shaqeeyo waxaas dhan marka hadirtaan marka mid kamid aan tagno midaan hadirtaan hadaan ku furo new tab waxa arkaysaa baa waxay tahay in la ii soo saaray Cisco certification Cisco certified support technician oo networking in la ii soo saaray hadaa fiiriso marka required exam waxa lagu leeyahay waa hal exam weeyaan halkaas imtixaan marka waa geli kartaa recommended training waxa lagu leeyahay trainingka oo Cisco wali diyaar ma ahan oo mataqaana ayagu waxta ma diyaarin wali laakiin waxay ku leeyihiin recommended free wax leeyahay free ma jiraan $500 ay ka qaadayaan ugu yaraan koorsada ugu yar ay ka qaadayaan marka waa Cisco waa mataqaana adiga dhowr cashirka koowaad waxa dhici karta maybe in lagaaga baahan yahay inaad log in samayso oo Cisco network academy iska diiwaan geliso aad mataqaana aad si brief ahaan aad free ugu daawato laakiin wax la free loo ma jiraan hadaa fiiriso marka first date of test waa April 2023 koorsadan way soo bixi doontaa ka hor April insha Allah saan rajeynayno oo hurbad way soo gali doontaa waxa kali ku siinaysaa baa waxay tahay imtixaankan marka kali ku siiso waxa arkay exam page-ka hadaa fiiriso wuxuu qaadanayaa waxay noqonayaa waxay tahay waqtiga ay kugu qaadanayso imtixaanka inaad ku dhamayso waa 50 daqiiqo luqaddu waa English waxaan lagaaga baahan yahay inaad iska bixiso $125 imtixaankana ma dhacayo ogaw hal mar baad galaysaa waa lifetime ma dhacayo wixii isbedela ma ogi hadda waxaan duubayaa aniga videogan waa February 2023 ayaan duubayaa waxa dhici karta mustaqbalka inay Cisco ay iska bedelaan fikradaas ay dhahaan okay saacadan laga bilaabo waa imtixaankan waa u dhacaa marka taasuna ogaw imtixaanka hadirtan sida ay sheegeen ay waa sida hadalka u dhigaan ma u dhacayo imtixaanku marka hadaad fiiriso marka bogan waxa samayn kartaa waxay tahay review the exam topics inaad dhahdo dan kadib aad fiiriso waxyaalaha imtixaankan lagu soo daray oo hadaa fiiriso standard concept waxa lagu barayaa waxay tahay basic networking ayaa ku baranaysaa protocolska TCP/IP OSI modules LAN WAN waxay kala yihiin difference between throughput iyo markana bandwidthka TCP UDP waxyaalihi adiga networking fundamentally CCNA lagu baran jiray ayay kugu barayaan okay sidoo kale waxa arkay waxay tahay subnetting waxa ku baranayba waxay tahay IPv version 4 iyo version 6 labadoodaba waa ku baranaysaa iyo NATing concept waa ku baranay waxa kale ku baranayba waxay tahay fiilooyinka waxa kale ku baranayba waxay tahay infrastructure-ka waxa kale ku baranayba waxay tahay hoos aado waxa kale ku baranayba waxay tahay waa diagnostic iyo siyaabaha troubleshooting-ka loo sameeyo waxa kale ku baranayba waxay tahay wax yar oo lagu taabsiinayo oo security wax yar waa lagu taabsiinaa kaliya okay haddaan gadaal u laabano CCST oo cyber security-ga waa arki kartaa ayadana sidoo kale hadaa hoos socoto waqtiga soo baxayso waqti bay soo baxayaan haddaan wax yar kor socono waa kana cyber security-ga mid kan uu ka soo horbaxaa actually 1st of March soo baxaya so wuxuu soo baxaya 20 maalin kadib ayuu soo baxaya marka haddaan click ku siino actually 19 maalin kadib sababta bisha 28 ku dhamaata hadaa click ku siiso hoos socoto waa the same price same waqti bay soconayaan laakiin exam blueprint-ga ku kala duwan yihiin marka tagto sababta mid security way ka hadlaysaa mid networking hadaa fiiriso marka waxa lagu barayaaba waxay tahay ku baranay essential security principles oo confidentiality integrity availability iyo siyaabaha kale u shaqeeyaan iyo advanced persistent threat iyo waxa uu phishing yahay iyo malware iyo waxa soo dhan lagu barayaa iyo mataqaana AAA oo authentication authorization iyo accounting radius server authentication wuxuu yahay waxa soo dhan ayaa ku baranaysaa iyo cryptography oo wax yar ka baranaysid iyo encryption methods public keys waxa soo dhan ayaa ku baranaysaa
waxaa kaloo aad ku baranaya baa waxay tahay waa basic networking security, waxaa kaloo ku baranaya baa waxay tahay endpoint network security concept, waxaa kaloo ku baranaya baa waxay tahay vulnerability assessment iyo risk management, waxaa kaloo ku baranaya baa waxay tahay incident handling. marka ogaaw waa entry level, waa introduction, wax yar explanation weeyaan, xataa practice ma lahan, wax practice ma laha, wax oo lab ma laha, waa all about explanation weeyaan koorsadan. sababto haddaad eegto mid kamid ah hadirtan waa explain, define, explain weeyaan, mid ka rabta tag, mid ma jirta lagu leeyahay mataqaanaa create ama configure lagu leeyahay ma jirta. haddaan midaan taga hadirtan waxaa arkaya baa waxay tahay use, explain, explain, explain aa lagu leeyahay. fiiriya, haddana waxaa lagu leeyahay baa waxay tahay identity, monitor, explain, explain, describe. fiiriya aa lagu leeyahay. marka ma ahan mataqaanaa wax lagaaga baahan yahay gacanta inaad wax ka samayso. marka abdeydadan cusub waxay ay keenayaan baa waxay tahay in horumar badan oo dhaco, in qofkii oo cilmiga oo baranayay inuu markaas up to date u yahay. haddaa aniga adigu hadirtaan aan isla tagna Cisco, waxaa arkaysaa baa waxay tahay Cisco ma iri Hurbad. okay, haddaa Hurbad aniga adigu isla tagna hadirtaan waxaa arkaya baa waxay tahay haddaa qaybta networking ka tagno labada koorso oo CCNA iyo CCNB ba diyaar inay yihiin. okay, waa kana CCNA waatan diyaar weeyaan, CCNB qaybta koowaad oo koorsada koowaad koorka ah diyaar waay. ogaaw hal mid aan kugu celinayaa, CCNA haddaa hadirtaan maanta haddaad iibsato waqti waad haysataa aad imtixaanka ku gasho. imtixaanka markaa gelaysidna CCNA-da maahan oo keliya inaad video keliya course inta daawato aad ku gasho. video course markaa daawato laabiska dhan samayso, waa inaad buugaagtaana aad mataqaanaa maarata aad akhrisaa, ama ha ahaadaan English version-kooda oo official curriculum-ka Cisco ay soo qortay, ama kuwaanan qornay anagoo ayaguna official-ka ah oo af Soomaali ah, laakiin inaad mataqaanaa akhriso. laba buug weeyaan, labadaas buug laabis ku jira, cilmiga ku jira, waxa dhan markaa fahanto ayaa kadib waxaad samayn kartaa inaad dhahdo diyaar baan waxa u ahay inaan galo CCNA markaa certificate. balse runtaan idiin sheegaya CCNB waad baran kartaa, cilmi ahaan waa u baran kartaa. anigu kuma dhahaya ha baranin, ha gadanin, ha samaynin, kuma dhahay. cilmi ahaan waa u baran kartaa, laakiin waxaad ogaataa isbedel inuu ku dhacayo. isbedelkaasna waxaa u malaynayaa inuu noqon doono, saa u malaynayo ma hubaya, waxaa u malaynayaa inuu noqon doono isbedel ka yar 20%. marka haddaad hadeertaan iska diiwaan geliso 20% of it, hadhowtadii markay taasu soo baxdo ayaa waxaad samayn kartaa koorsada cusub inaad iska diiwaan geliso oo aad dhammaystirato. koorsadaana ma noqon doonto koorso oo ayada update aan ku samaynayno. waxaan samayn doonaaba waxay tahay inaan abuuri doono koorso brand new ah, inaan abuuri doono oo CCNB oo styleka cusub annaga aan u duubno, koorsooyinka hadirtan aan u duubi doono, kala jabi doono, oona ka dhigi doono koorso aad u weyn oo ilaa iyo 6 koorso kale ah aan ka dhigi doono, midiiba 200 cashar ay noqon doonto. sababtoo waxaa loo baahan yahay in bahasha maaragtay cimaamada laag dhigto oo si fiican loo kala jajabiyo, loo kala dhigdhigo. qofkii yiraahda sababtoo CCNB da hadirtan waxa weeyaan waa haddaad CCNB barato almost CCIE waa u dhowdahay, sababtoo ah theory-gii iyo cilmigii lagaaga baahnaa CCIE oo dhan CCNB ku jira. marka ma aha wax sahal ah. sida ay Cisco ay u samayn doonaan hadirtaana waxaan maqlay anigu ayaa waxay tahay inay ka dhigi doonaan koorso aad u weyn, inay ka dhigi doonaan 20% ay ku darayaan, laakiin 20% waxaa dhici karta inuu almost yahay 50% midda hadda jirto kale inuu yahay, ay wax badanna ka saari doonaan, wax badanna ku soo dari doonaan. marka waxaan rajaynayaa inaad mataqaanaa taas ila fahantay. hadegdegin, cilmigu ma ahan inaad dhamayso, inaad fahantaa muhiima. qasab maaha inaad wixii dhamayso. haddaa isku dayaysa inaad dhamayso, wala anigu 20 sano hadda ag taagana welina ma dhamaynin. marka ha isku dayin inaad dhamayso, laakiin isku day inaad fahanto, ku shaqo tagto. marka waxaan kugula talinayaa waxay tahay tartiibtaada inaad u wadato. koorsooyin badan halkaan ayay soo geli doonaan, koorsooyinka cusubo halkaan ayay soo geli doonaan oo CCST cyber security iyo CCST networking labaduba qaybtan ayay ku soo darsami doonaan, iyo CCNA si fiican loo kala dhigdhigay oo qofkii CCNA bartaa any network oo taga, any network oo dul tago configuration ku samayn kara. CCNB qofkii bartana wuxuu noqon doonaaba master of networking uu noqon doonaa insha Allah. marka waan dadaalaynaa, balse adinka waxaa idinkaga baahan yahay inaad naftiina been u sheegin oo aad isku daydin inaad cilmiga baratiin, inaadna naftiinana aadna khiyaamin oo brandam iyo qashinkaas aadna ka daba wareegin. qasab maaha inaad qaadato shahaado, taas anigu aaminsanaha, laakiin waxa qasab kugu ah baa waxay tahay wixii inaad barato. qasab maahan xataa Hurbad inaad ka barato, meel alle meesha rabta ka baro. sababtoo qofka wax baranaya annaga maaha, waa adiga qofka wax baranaya. marka waxaan kugula talinaynaa baa waxay tahay inaad dadaasho, inkastoo aysan jirinin koorsooyinkan annaga aan hayno af Soomaali ah, in aad meel kale aad ka heli kartid sida ay u badan yihiin. balse meelaha wax ka baranaysa waa badsan kartaa,
waana kugula talinayaa taas laakiin dadaal adigu qofka wax baranaya waxaan kuu sheegayaa inuusan annaga ahayn oo adiga uu yahay marka waxaan idin rajeynayaa maalin wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh